Hi Legend waa anigoo ah Cali Kaamil mar kale maanta waxaynu soo bandhigi doonaa filimka qoyska 2017 ee loogu magac daray Max 2 White House Hero ila daawa xogta filimkan oo dhameystiran haddaba aan guda galno bilowga filimka waxaynu aragnaa laba mudane oo uu ku jiro wakiilka Thorne wakiilka kale ayaa siinaya xog sir ah wakiilka Thorne waxay ka hadlayaan bixitaanka eeyga adeega sirta kadibna wakiilka kale oo sir ah ayaa soo bandhigaya Max eeyga Malnius Belgian oo tababaran kaas oo raaci doona wakiilka Thorne si loo hubiyo amniga guriga cad si wada jira goobta kadib waxa uu wareegaya aqalka cad Thomas Bennett oo waqtiga madaxweyne ka ahaa xilliga quraacda iyo daawashada TV-ga qoyskiisa waxa la jooga wiilka uu dhalay madaxweynaha ee TJ Bennett waxa uu ka cawday way aragnimada uu leeyahay iskuulka inta badan waxa ku adkaatay inuu saaxiibo ka sameesto dugsiga sababtoo ah mid walba markuu ilmuhu u soo dhawaado laba qof oo ilaala ah ayaa isla markii baari jiray ilmaha taas oo aqalkii ka dhigaysa mid dareemo raaxo la'aan iyo madax xanuun Thomas Bennett wuxuu isku dayay inuu sharxo wiilkiisa ilaa uu TJ ugu dambeyn ka fahmay wadadii uu socday iskuulkiisa wuxuu si lama filaan ah ula kulmay Max TJ waxa uu bilaabay inuu la ciyaaro iskuulka waxa lagu arkayaa labo ilaala ah oo gadaal ka taagan TJ meel walba oo gudaha dugsiga ah taasoo keentay inay si xor ah wax ugu qabtaan iskuulkaasi muuqaalkii xigay TJ ayaa soo gaaray guriga cadaanka oo ka soo laabtay iskuulkii ay labadaasi ka socdeen guriga cad ayaa ka baqaya qof kasta oo dalxiis ah ayaa bilaabay inuu sawir qaado kadib TJ waxa la arkayaa isaga iyo cunto kariyaha oo wada jooga maadaama aysan cid la saaxiibin waalidkiina way dayaceen arrintan TJ waxay ka dhigtay cunto kariye saaxiibkiisa oo waqtigiisa ugu badan ayuu la qaataa iyaga oo marka xiga TJ la kulmay Max mar kale in the hallway madaxweynaha Bennett ayaa yimid halkaas waxaana sidoo kale la arkayaa isaga oo la ciyaaraya madaxweynaha eeyga Bennett oo amar ku siiyay wakiilka Thorne inuu ogolaado Max inuu la ciyaaro TJ saacadaha shaqada laakiin wakiilka Thorne ayaa diiday oo mar rabo inuu Max ku wareego shaqadiisa intuu sii wada ciyaarta TJ balse awoodda aabihii TJ ayaa ugu dambeyn la ciyaaraya Max kadib TJ ayaa la arkay isagoo Max ku ciyaaraya meel walba xiriirka ka dhaxeeya Max iyo TJ wuu soo dhawaaday oo Max kii loo xilsaaray inuu caawiyo sirta ayaa dareemaya inuu guriga joogo kadib markuu la kulmo TJ maalinta ku xigtay wuxuu u qaadayaa Max dugsiga sidoo kale Max dartiis wuxuu saaxiibo ka dhigtaa dugsiga wuxuuna ku casuumayaa TJ xafladooda si fiican markii uu guriga yimid TJ waxa uu weydiistay fasax uu ku aadi karo xaflad asxaabtiisa balse waalidkii ayaa diiday inuu meel kasta aado habeenkaas sababtoo ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Bragov ayaa imaanaya aqalka cad TJ kadib ayaa loo xilsaaray inuu raaco madaxweynaha Bragov gabadhiisa Alex oo ay isku da'yihiin isaga inkastoo uu ka caroodo aabihii wuu aqbalay oo wuxuu isu diyaariyay casho markuu yimid madaxweynaha Bragov TJ hooyadii iyo madaxweynaha Bennett ayaa raacaya hadda waa labadooda TJ iyo Alex TJ wuu naxay kadib markii uu ogaaday in Alex uu wax badan ka garanayo isaga durbadiiba wuxuu isbaray Max iyo Alex kadib markuu isbaray Alex TJ waxa uu ka haystay Alex jikada waxa uu baray cunto kariyihii saaxiibkiisa kale ee goobta ku xigay joogay Alex waxa la arkayaa TJ oo qol ku dhex cunaya oo ay labadooduba isku xidhan yihiin cadaalad darada labada dhinac ee soo food saartay inay yihiin caruurtii madaxweynaha TJ waxa uu sheegaya Alex xafladda iyo Alex oo soo jeedinayso inuu u soo dhunto xafladda marka labadoodu waxa ay qorsheynayaan inay xafladda tagaan oo cashada iska dhaafaan Max intuu qolka ku jiro oo qol kale ka soo galay daaqada oo si dhuumaaleysa ugu soo galay jikada ayuu xataa soo kaxaystay dharkii shaqaalaha si ay ugu fudaato inay dibadda ugu soo baxaan iyadoo aanay cidi aqoonsanayn gurigana way ka baxeen iyagoo ku biiray caruurtii kale ee dalxiiska u joogay dhanka kale Max waxa kale uu ku guuleystay inuu albaabka ka furo oo uu raaco Alex iyo TJ markii mid ka mid ah ilaalada uu soo galay qolka TJ si uu siiyo cabitaan waxa uu ogaa in labada madaxweyne ay dhaleen qalalaasii la yaab kalaha ayaa ka dhaxaloosba guriga cad kadib markii ay ka war heleen dhacdadan kadib Alex iyo TJ ayaa lagu arkay wadada dhinaceeda wadada xafladda oo ay si lama filaan ah ugu soo dhawaadeen nin maaskaro xidhan oo isku dayay inuu afduubo TJ si kasta Max ayaa soo gaaray halkaas waqti kadib oo uu caawiyay daqiiqado kadib afduubihii labaad ayaa sidoo kale ka soo baxay gaariga oo Max qaniina mid ka mid ah kadibna waxay ku tageen gaarigii afduubkii muuqaalkii xigay TJ Max iyo Alex waxay gaareen guriga TJ wuxuu u sheegay aabihii oo xanaaqsan iyo wiilka Thorne qadiimiga ah afduubayaasha waxa ay ku hadlayeen afka Ruushka waxa uu ka codsaday aabihii inuu hubiyo dhammaan Ruushiyiinta oo uu aan qowgooda ka qaniinay Max laakiin wuu diiday oo uu sheegay TJ in wakiilada sirta ah ay arrintan wax ka qabanayaan oo uu dirayo inay seexdaan ka hor inta uusan wax kale oran kadib TJ ayaa maqlay iyaga oo leh inay rumaysan waayeen waxa uu yiri subaxii xiga qoysaska madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Ruushka waxay aadeen xero ay isku soo dhawaadeen Alex iyo TJ tuhunka ku saabsan Ruushka sidoo kale TJ ayaa tuhun ka galay Alex inay ku lug lahayd falkii afduubka xaray dhanka kale aabihii iyo madaxweynaha Bragov ayaa la arkayay iyagoo wada baashaalaya TJ iyo cunto kariye ayaa la arkayay iyagoo ka hadlaya daarada dambe wuxuu u sheegay wax walba si uu u ogaado dhacdadii afduubka ay xalay tuhmanayaasha cunto kariyaha Ruushka Dmitry waxa laga yaabaa inuu ku lig leeyahay afduubka isagoo xiiseeya TJ wuxuu bilaabay inuu raaco Dmitry meel kasta uu tago Max tuhunkiisa wuu sii xoogaysanaya markuu uu arko Dmitry oo sita sanduuq aan caadi ahayn
oo gelaya guri faaruq ah sababtoo ah dhibaatada turjumaadda luuqadda Dimitri. TJ ayaa isticmaalaya Google Translate laakiin jawaab la yaab leh ayuu ka helay. TJ gurigu u soo galay si uu u qabto waxaa soo baxay in Dimitri uu sameynayay rootiga ruushka uu dhashay ee Dimitri ayaa uga digay TJ inuu u dacwoodo waalidkii balse Alex ayaa waqtiga ku soo galay wuuna badbaadiyay. waxaa soo baxday in Alex uu sidoo kale baarayo qof waxay wax u dhimaysaa qoyskeeda iyo qoyska TJ. Alex kadib waxay tuhaysantahay mid ka mid ah ilaalada aabaheeda oo ay raadkeeda daba joogtaa oo ay baaritaan gaara ku haysaa iyadoo ka eegaysa qaniinyada eega uu ku dhigay xalay Marcus. madaxweynaha Bennett oo u muuqda mid ka daalay faras fuushanaa 4 saacadood ayaa isku dayay inuu ka farxiyo madaxweynaha si uu ugala xaajoodo wada hadalka nabadda laakiin madaxweynaha Bargov ayaa diiday oo ku amray inay ku raaxaystaan maalintaas madaxweynaha. Bennett ayaa ogolaaday. marka xigta waxaan aragnaa Alex iyo TJ oo wehelinaya Marcus raacay ilaalada kuwaas oo ay ka shakiyeen inay raacaan iyada oo la raacayo qol hoose oo aan caadi ahayn. waxay si aamusnaana u galeen qolka hoose oo ay arkeen waardiyaha oo xiran telefoonada gacanta oo ku hadlaya luuqadda ruushka. TJ ayaa ku rakibay kaamarada qoorta Marcus iPad-kiisa si uu sii eego. waxa uu ku amray Marcus inuu si dhow Malaysia ah ugu soo dhawaado. Marcus waxa uu suurta gashay inuu u dhawaado oo uu arko anqowgooda. kadib markuu arkay anqowgooda Alex iyo TJ oo ogaaday inay tahay tattoo kaliya maahan inuu ay qaniinay. si lama filaan ah ilaalo kale ayaa soo galay qolka hoose oo aan ku qaban iyagoo si dhow Malaysia ku dhex dhoomanaya goobta xigta. waxaanu aragnaa in labadooda guriga loo kaxeeyay maalintaas kadib madaxweynaha Bargov iyo madaxweynaha Bennett waxay la aadeen Alex iyo TJ halkaas. waxaanu ku aragnaa qof ku buufiraya doonta ay fuuleen doonta oo ku raaxaysanaya raacitaanka halka wakiilka Tom uu eegayo xindaab iyadoo ugu badnaan khasaaraha doonta ayaa sii kordhaya sababtoo ah buufinka daqiiqada kadib doontii plastikada ayaa qaraxday. qof walbana wuxuu ku dhacay biyaha. TJ waxaa badbaadiyay aabihii laakiin Alex ayaa la arkayay iyadoo sii fogaanaysa. Marcus ayaa badbaadinaya oo u kaxeeyay xeebta. Alex kadibna la midoobay aabihii. madaxweyne Bargov oo guriga dib ugu soo laabtay. waxaan aragnaa in kooxda amniga Mareykanka iyo kooxda amniga Ruushka uu muran xoogan ka dhaxeeyo halka TJ uu sheegay in laga yaabo in qof uu dabin ku hayo laakiin qofna dhig jalaq uma siin. in muddo kadib TJ wuxuu kula kulmayaa Alex guriga dibadiisa waxaanu u sheegay inuu ka shakiyay toobkii hore. waxa kale oo uu diyaar u yahay inuu runta sheego habeen dambe. waxaanu aragnaa dib u habeenta dhacdada ka dhaxaysa xiriirka nabadda labada Alex iyo TJ. waxay iska dhigay inay jiran yihiin si ay uga fogaadaan dhacdada si ay u fuliyaan qorshahooda ah inay qabtaan wakiilka qadiimiga Tom oo casaan ah. marka ay xafladdu bilaabato xaaska madaxweynaha Bennett ayaa bilaabaysa inay la qabato iyada piano. dhanka kale Alex iyo TJ waxay dib u laabteen Marcus waxayna u direen inay soo helaan wakiilka qadiimiga inta ay ku sugan yihiin oo ay ku dhuumanayaan armaajo. laakiin si lama filaan ah ayaa qof dibadda uga soo xidhay ayaa waxaa soo baxday in ninkii isku dayay inuu afduubto uu ku xidhay. waxaana hadda la arkaya isaga oo xadhiga ka jaraya chandlerka si uu u waxyeeleeyo xaaska madaxweynaha Bennett. Marcus ayaa tagay halkaas oo isku dayay inuu joojiyo balse afduubuhu waxa uu haystaa mindi taas oo baqtin gelisay eegi. kadibna wuxuu sii waday inuu xariga ka jaro oo uu ku riday chandlerka balse si unbay Alex iyo TJ u suurta gashay inay ka soo baxdo qolka armaajooyinka oo kaliya oo ay ku qayliso. TJ hooyadeed ayaa gees u dhaqaaqday oo isbadbaadisay. labadaba Alex iyo TJ waalidkii ayaa ka xanaaqay iyaga mar kale. TJ ayaa u sheegay waalidkii in wakiilka Tom uu yahay ninka xun oo ka codsaday aabihii inuu u sheego inuu canqowga tuso calaamadaha qaniinyada. marka ay hubiyaan wakiilka Tom canqowga waxba kama soo baxayaan. Vladimir wuu niyad jabay oo wuxuu qaatay go'aankiisa ah inuu soo aftiro wada hadalka nabadda wuxuuna ka tegay Moscow. wakiilka qadiimiga Tom mar labaad wada hadallo kana saara meesha kadibna waxa uu ka qaaday TJ Marcus oo uu ku xidhay qafis goobta ku xigta. TJ waxa uu aaday si uu jikada uga soo qaado caano fadhi. Coop oo halkaas joogay markuu TJ qaando dhulka kaga dhacday soo qabsays lahaa ayuu arkay nabarkii qaniinyada ka soo gaaray canqowga Coop. wuxuu hadda garanayaa wax walba oo ku saabsan Coop. qofka TJ aaminay wuxuu noqday qaa'in. markii uu rabay inuu ka tago Coop ayaa joojiyay isaga kadibna wuxuu muujiyay aqoonsigiisa sida wakiilka Ruushka. Coop uu sheegay TJ ma raba in wada hadallada nabadda ee u dhaxeeya Mareykanka iyo Ruushka ay dhacaan. marka TJ uu ordo si uu helo Coop mindi isaga qabto oo kadibna ku xiro qaboojiyaha. kadibna wuxuu u yeerayaa Olga ilaaliyaha oo ku amray inuu afduubto Alex oo ay ka tagto TJ. dhanka kale Olga waxa uu ka xistay Alex dhinaca keenta iyadoo dawaqsan. markii Alex uu weydiiyay aabaheed wuu xidhxidhay. daqiiqado kadib Marcus waxa uu ku soo toostay TJ qayladii ayuu god qoday oo dhinaca kale ka soo baxay. dabadeed ayuu daaqada ka jabiyay qolkii oo uu aaday si nabad ah. waalidkiina waa ay ku baraarugeen oo uu horkacayo. waxa uu kaxeeyay jikada u dhow TJ. markaasi u soo saareen TJ waxay u sheegeen in Alex ay halis ku jirto. markiiba waxay u yaaceen dhanka Alex qolkii laakiin aad bay u daahday. kooxdii nabad sugidda ayaa isla markiiba qorshe dejisay laakiin TJ wuu bukay. dibudhaca wuxuuna uriyay jaakada Alex isla markiiba wuxuu u orday dhankii keenta wuxuuna TJ ka codsaday qof walba inuu raaco dhammaan iyaga oo raacaya Marcus baabuurtooda. dhanka kale waxbay ku dhufatay Olga
oo waxay u carartay dhanka kale ee keenta si lama filaana kuub ayaa qabsaday waxaa ku dhacaya dacas iyadoo iska caabinaysa kadib waxay geeyeen gaariga oo ay ka tageen max qof walba wuxuu u horseeday dacas oo aaday dhanka kale ee wakiilka webiga ayaa wakiilka Thorne uu ku amraya in la xiro wadada dhamaadka Max ayaa arkay gaariga waxaana la arkayay isagoo eryanaya balse kuub ayaa soo dadajiyay Max kadibna waxa uu soo qaaday jid gaaban oo ku booday gaariga kuub gudihiisa Alex ayaa wax ku dhuftay Alga iyadoo gees isaga riixaysa wadadu waxay soo afjartay xubnaha qoyska iyo baabuurta ugu dambeyntii booliska waxay kaxeynayaan Alex waxayna xireen kuub iyo Alga kadib dhacdadan madaxweynaha Benny ayaa isla markiiba raali geliyay TJ si uusan u rabin inuu u rumaysto dhammaan ereyada wiilkiisa ugu dambeyn Alex iyo TJ waxay ka codsanayaan waalidiintooda inay sii wadaan wada shaqaynta Mareykanka iyo Ruushka halka ugu dambeysay filimkan waxaynu arkaynaa in labada madaxweyne ay sii wadaan wada hadallada nabadda shir jiraa'id loo qabtay Max ayaa la siiyay abaalmarin loogu talagalay wakiilka geesinimada Thorne kadibna waxaa loo keenay caruurtiisa way ku farxeen TJ iyo Alex arrinkaasi si aad u hesho aflaam cusub markasta fadlan like share iyo subscribe